markaad noloshaada si qoto dheer u fiirisid waxaan filayaa in labadan mid ka mid ah tahay qofkan koowaad hadaa si fiican u fiirisid wuxuu wajahayaa caqabadaha noloshiisa isagoo oo garanaynin wadadaas dheer uu hayo waxa uu soo bixi doono halka qofkan labaad uu yahay qof gacanta laga hayo waxa uu sugayaa ama uu markasta raadiyaa cid caqabadaha haysata la xalisa haddaba muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaan firfircoonida ama proactive waa maxay sifooyinka ay leeyihiin dadka firfircoon ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta intaan muuqaalka gudaha u gelin adigoo mahadsan sharaf ku dhaanta waxaan kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saartid haddana nagu cusubtana subscribe tahay firfircoonidu waa astaan ay leeyihiin dadka guuleystayaasha ah mid ka mid ah sifooyinka lagu yaqaan qofku inuu yahay qof firfircoon waxa ka mid ah wuxuu diiradda saaraa waxyaabaha uu xakameyn karo kuma mashquulo waxyaabaha asaga awoodiisa ka baxsan tusaale haddii uu roob da'ayo adigana lagaa sugayo inaad hawl qabatid oo shaqadii aad timaadid adigu roob ma joojin kartid laakiin waxaad adeegsan kartaa inaad dallad soo qaadatid oo dalladaas aad roobka iskaga dhigtid astaamahooda kale waxaa ka mid ah ma niyad jabaan marka ay caqabaduhu soo wajahaan waxay ka qaadaan adeeg guuldarrooyinkana uma arkaan waxyaabo xun waxay u arkaan fursado ay ku dhisi karaan noloshooda marka sidee ku noqon karnaa qof firfircoon oo laga yaabo in uu sanadkan oo dhan si isku mid ah wax u qabto qof caajiska ka dheer sidee ayaan ku noqon karnaa waxaan eegi doonaa hadduu ilaahay ilaa dhowr qodobkooda wuxuu noqonayaa ka fakir hadafkaaga fog inta badan bulshadeenna indhahooda ama maankooda ma qabtaan wax ka fog maanta nolosha maanta ay ku jiraan caqabadaha maanta haysta dhammaanteen inteena badan intaas ayaanu ku hareersanna intaas ayaanu ku mashquulnaa laakiin markii aanu fikirka u weecinno inaanu maalin kasta ka fikirno mustaqbalkeena fog waxyaabaha aanu doonayn hadduu ilaahay inaan noqonno shaqooyinkeena la kaga baahan yahay inaan qabanno ahdaafteena fogfog markaanu ku mashquulno waxaa imaanaysa inaanu ka faa'iidaysanno ahdaafta maanta taagan inaanu ka faa'iidaysano in ahdaafta aan u dejinno smart goals waxay yidhahdaan inaan samaysano waa in qofku noqdo qof ahdaaftiisa fog maalin kasta ku mashquulsan wixii uu berri noqon lahaa maalin kasta ka fakaraya number 2 waxaan kaga baahan yahay inaan si hufan waqtigan u maareysano oo haddii aad aragtid qof waqtigiisa dayaca dabcan mustaqbal wanaagsan kama soo socdo marka waa inaan ku fakirnaa haddii aan rabnaa noqono dad qof firfircoon waa inaan ku fakirnaa inaan si hufan waqtigan u maareysano maalin kasta inta aan habeenkii seexan ama markaan subaxii soo kacnaba waa inaan haysanaa liis shaqo oo noo qoran maxaan rabaa inaan maanta aan qabto si aan hore ugu sii dhaqaajiyo mustaqbalkayga waa inaad haddana iska ilaalisaa wahsiga iyo dib u dhigashada sababtoo ah mustaqbalkaagii quruxda badnaa ma gaari doontid haddii aad wahsatid sidoo kale haddii aad dib dhigatidna hore uma soconaysid sidoo kale waa inaan ka dheeraanaa waxyaabaha na mashquulinaya sida inaan maanta oo dhan qadka iskaga jirno amase inaan saaxiibada si bilaa micno darro ah aan maanta iskala sheekaysano iskala soo baashaalno dabcan waa garanaynaa shaqooyin badanna inaan isku hal waqti qabanno waxay ka mid tahay waxyaabaha waqtigeena dilahaya ayay ka mid tahay okay waxyaabaha waqti maalinta waxa kale ka mid ah inaan shaqo walba waqti fiican oo lagu dhammayn karo aan siino qodobka saddexaad oo la ka rabo wuxuu noqonayaa inaan isticmaalno xeerka 80-20 xeerkan wuxuu diiradda saarayaa howlahaaga kuwa ugu muhiimsan oo dabcan haddii maanta aad rabto inaad 10 shaqo aad rabto inaad qabatid 10ka shaqo intaada bilaabin waa inaad tiraahdaa 10 shaqo waa maxay midka iigu muhiimsan ee haddii aan qabto aan natiijo fiican helayo mustaqbalkayga hore u dhaqaajinaya sidoo kale marka taas aad qabatid waa inaad haddana ku fakirtaa waa maxay shaqada labaad ee haddii aan qabto shaqooyinkan kale dhan iiga muhiimsan sidaas waa inaad u kala nidaamisaa shaqooyinkaaga maalinlaha ah oo diiradda aad saartaa howlahaaga muhiimka ah qodobka kale afraad wuxuu noqonayaa waa inaad noqotaa qof wax walba u diyaarsan dabcan markii aan rabno inaan howl qabanno oo aan rabno subax walba inaanu wax dhaqaajino waxaanu gargaraacaynaa albaab aanan garanaynin cidda naga furaysa ama waxaanu qabanaynaa
hawl aanan gelin in waxa ka soo bixi doona sidaas daraadeed waa inaan noqonnaa qof u diyaarsan wax kasta oo soo baxa caqabad kasta oo timaada qof xalkeeda raadinaya waa inaan noqonnaa laakiin haddii ay nagu dhacdo inaan inta albaab gargaraacno hawl isku dayn inaan qabanno markii hawshii adeegeedii soo baxo aanu dib u laabanno aan diraahno alla hawshan hawl qaban kara ma ahan haddaba ma noqonayno dad firfircoon ee waxaan noqonaynaa dadka kale inay wax u xalliyaan suga inay markasta yiraahda hawshan waa hawl adag waxay u baahan tahay tiim kale iyo kooxo kale inay qabtaan waxay u baahan tahay in dawladdu ay hawshan qabato ee hawl anagu aan qabsan karna maaha waxaan filayaa in muuqaalkan kooban uu wax badan noloshaada kordhiyay daqiiqado yar oo 5 daqiiqo ah uu dhiig cusub ku shubay haddii ay sidaas tahay muuqaalka la saar commentigana naga wadaag aad baad u mahadsantahay